kulan wacan u wanaagsan idilahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidha meel kaste oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenii faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa hadduu rabiidmo qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin maamulada somalilan iyo puntland oo iska xaadiriyey magaalada addis ababa xilli ay ku sugnaayeen garaadada qaar ka mida oo wadahadalla u joogay magaalada addis ababa xaalada ka taagan magaalada laascaanood ayaa dalkaasi ethoobiya waxay doonaysaa in gebi ahaanba lagu soo afmeero xal waar oo ka dhaca deegaanadaasi haddaba qodobkan ayaan ku dul istaagi doonaa hadduu rabiidmo barnaamijkeena iyo xogaha ugu dambeeyey ee naga soo gaadha magaalada addis ababa xilli saaka aroortii hore ay ciidamada maamulka somalilan ay gantaalla ku garaaceen ciidamada xoogaga s c deegaanadii ay kaga sugnaayeen waxaana la tilmaamayaa in ciidamo aada u fara badan oo ku jiray goojo cadde ay diideen in ay kusii jiraan deegaanada goojo cadde iyo xeradaasi waxaana la sheegayaa in sanaag bari ay saraakiishaasi ula baxsadeen ciidamo aada u fara badan magaalada muqdishona daawadayaal waxaa lagu toogay 3 ka mida dilaayadii kooxda al-shabaab oo uu ku jiro doctor fanax waxaan iyadana ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijkeena ayaad kaga bogan doontaan hadduu rabiidmo waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan idinku haynaa dowladda eritrea oo sheegtay in qowmiyadda tigreega ay dagaal xoogan ay isu diyaarinaysa si ay ugu qaadaan dowladda uu hogaaminayo ra-iisul wasaare abiy axmed qodobo kale oo xiiso badan ayaa inoo raaci doona hadduu rabbi hidmo waxaana barnaamijka igala qaybgalaya mahad colaad iyo weliba saaxiibkay goon oo inta badan labaduba ay ka faalloodaan xaaladihii ugu dambeeyay geeska africa balse haddaan ku bilaabo saaxiibkay gooni iyo xaaladda magaalada addis ababa shirka ka qabsoomaya oo uu indhaha ku hayay ayaan doonayaa gooniyow shirkaasi yaa ka qaybgala muuse ma tegin fargoda waa mahadsan tahay horta magaalada addis ababa waxaa gaaray garaadada qayb ka mid ah inkastoo qayb kale ay soo socdaan waxaa kaloo gaaray muuse biixi cabdi deni ayaa laga yaabaa saacadaha soo socda inuu gaaro marka dhammaantood waxaa martiqaad ay ka heleen abiy axmedka dalka etoobiya marka wadahadal ayaa halkaas ka dhici doono si xabadda loo joojiyay inkastoo saakay turtur iyo maxayna la weerar oo ka dhacay laakiin haddana wadahadal ayaa la rajeynaya inuu ka dhaco magaalada addis ababa wadahadalkaas kadibna natiijadii kasoo baxo in lagu dhaqaaqo ayaa la rajeynaya muuse biixi cabdi wuu gaaray saciid cabdullaahi deni uu ku wajahan yahay waxaa kaloo meesha gaaray garaadada qayb kamid a waxaana uga sii horeeyay cabdirasaaq khaliif oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan laakiin hadda asagu dhanka s c ka socda oo wadahadalka s c ku matalaya marka xaaladdu waxay sheegaysaa in warar fiican ay wadahadal fiican halkaas uu ka dhici doono abiy axmedna oo dhexdhexaadin doono labada dhinac kadibna wadahadalkaas kadib wixii kasoo baxo laisla aadi doono wadankii wixii lagu heshiiyana lagu dhaqaaqi doono fargodo hadday noqoto in ciidamada somalilan laga saaro deegaanada s c iyo hadday noqoto in xabadda sideeda lagu joojiyo inta wadahadal ka dhamaanaya labadaba waa arki doona wadahadalka wixii kasoo baxo waxaa jirta in maamulka somalilan oo muddo 30 sano ah dhisnaa gooniyow waad la socotaa isaga inta badan ee dhulkii uu gumaysan jiray britishku kama jirin khilaafaad dalka Ethiopia inay si ay ula tacaamulaan maamul ahaan mooyaane ma jirin iyaga dhexdooda wax la heshiisiina laakiin 30 sano ugu dambeysay Soomaalida ama dowladda federaalka ha noqoto ama Puntland ha noqoto heshiisiin far badan oo dhex martay baa jirta marka soo lama dhihi karo maamulka Somaliland waxaa fashilay madaxweyne Muuse Biixi oo 30 sano arintii iyo dowladnimadii la soo dhisay ayuu baabiyo soo lama dhihi karo aad iyo aad fargodow muuse biixi horta waqtiga ayaa ku xumaa doorasho ayaana la rajeynaya inay ka qabsanto somaliland marka asagoo doorashadaas ka cararayo ayuu wuxuu bilaabay shaqaaqo ka bilaabay deegaanada s c kadibna wuxuu bilaabay weerar toosa iyo ciidamo inuu halkaas ku daabulo marka xaaladdu way kasii dartay dagaaladu way sii kordheen sidii wax loo maleynaya wax way noqon waayeen wadahadalna meesha way ka tagtay dad fara badana meesha ku dhammaaday oo gaaray ilaa 250 qofood 700 qofna way ku dhaawacantay marka xaaladda xaalad sahlan ma ahan waqti la qaban karin ayay gaartay inkastoo hadda waantii lagu guuleystay rajana ay jirto wadahadal wanaagsanna ee la leeyahay laakiin muuse biixi nin madax adag oo dagaalka jecel oo fowdada jecel oo weligiis dhibaato ku hayn jiray waayo ummadda Soomaaliyeed wuxuuna goos ka haystaa nimanka la yiraahdo Imaaraadka iyo Ismaaciil Cumar Geelaha dalka maxaa la yiraahdaa Djibouti marka waxa amaraysa fargodow in ninkan si kale loo bashkareynayo inkastoo Ethiopia naftigeeda aysan wax wanaag u hayn ummadda Soomaaliyeed dhexdhexaadinteedana la sheegi karo inay far ku godan tahay ama dhinaca u xaglinaysa laakiin la ogaan doono wixii ka soo baxo muuse biixi cabdin waa nin adag nin wanaagsan oo ummadda Soomaaliyeed u turayana ma ahan waa nin weligiis ciidan ahaa ciidamada cirka ayuu ka tirsanaa Ethiopia naftigeeda xataa oo waagi dadkii dagaalka ku jiray ayuu kamid ahaa marka wax naxariis oo Ethiopia u haysa muuse biixi ma jiraan waxaan u maleynayaa in la gardaameyn doono Soomaaliya wada hadalkeedana meel xun oo gaari doono maadaama Ethiopia gacan ku rimis heshiis ah inay sameyn doonto loo maleynayo aad iyo aad baad mahadsan tahay gooniyo waan kusoo laaban doonaa daawadayaal barnaamijkeennii ayaan dhexda kaga jiray seed u aragtaa mahad colaad oo shirkan addis ababa ka furmay ee xoogaga ACC iyo maamulka Somaliland iyo waliba Puntland ku dhaxmari doona sida la filayo saacadaha soo socdana uu Saciid Cabdullaahi Deni uu gaari doona magaalada addis ababa faragodow aad baad u mahadsan tahay
كل شركة كدح دونا مقالة أديس أبابا وحن قياسها horta I don't know ma garanayo Puntland sababta loogu yeeray laakiin se labadan kale is haysata waxa lagu dhadhaxdin doonaa in ciidamada ay kala baxaan meesha Somaliland iyo in la dhihi doono sidiina ku heshiyo iswata labada mid uma ka soo bixi doon laakiin Puntland sababta hadda ay meesha iyada uga qayb qaadatay ama u tagtay wali ma fahansanin inkastoo aan ognahay inay Somaliland ay ku eedeysay inay Puntland fargelin iyo khilaafkanba iyadoo ay ka dambayso lagana yaabo saas daraadeed in lagu yaray laakiin hadda wax cad oo hadda Puntland iyadoo dhibaato oo ka jirta ma jirto inta hadii aan ka tagno labadan qolo aad bay u kala fog yihiin qolo waxay ka hor imaasan tahay Soomaali the weyn jiritaankeeda waxayna isku aqoonsan in ay yihiin dawlad gees ah oo madax banaan laguna magacaabo Somaliland qolana waxay aaminsan tahay calanka buluuga Soomaali ee ummadda dhan ee Soomaalida afka Soomaalida ku hadasha ka dhaxeeya inay kamid ahaadaan marka saas daraadeed waxaad moodaa inaan wali la isku soo dhaweyn mid kale aan la isku soo dhawaan karin waxa kamid ah inay qoladan ay dhaheen Muuse ciidamadiisa waa inuu kala baxaaba bataatanba gobolka Sool kadib baan wada hadli karnaa marka garaadada waxaad moodaa kulay hadiiba ay yeelan hadalkaas inay hadda ama cabsadeen ama loo hanjabay ama boosh gareyn kara ay ku imaatay laakiin markii hore waxay ku deydayeen in unsa wada hadal unsa dhici karin ilaa ciidamada oo gojac la geeyo meesha la dhaho og laakiin se saaka hadii garaadadii ay tageen magaalada Laascaanood waxaad moodaa garaadada in laga adkaado oo Muuse ka adkaaday sababta waxa ku sababeynaya Muuse wuxuu weligii ku adkeysanayay ciidamadiisa meesha jooga inay wada hadal la sameeyo oo iyaga wada hadlaan ama isfahmaan ama isfahmin marka Muuse wixii garaadada uga soo baxa inuu ku talaabo qaado oo marka ama dagaal uu bilaabo ama hadii kale hudub la heshiyo asaga ay yeelaan oo amarkiisa ay qaataan inuu marka ciidamada uu ka saaro laakiin se amarkaas Muuse watay in ciidamadu meesha wada hadal la sameeyo marka saaka waxa muuqata ciidamadii meesha jooga saakana magaaladii iyo maalin kastaba kolba wax ku soo tuurtuura meesha jooga inay wada hadal la sameeyo marka waxaan dhihi karnaa garaadada waa laga reeyay RSC-na sida ay ku socdaan waxaad moodaa inay dabada dhulka lagu dhufan doono aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinuba daawadayaal barnaamijkeena ayaa dhexda kaga jira gooniyow haddii aanu gudubno dhanka iyo koonfurta Soomaaliya waxaa jira in dilaayadii ugu caansanaa ee kooxda Al-Shabaab ugu xilsaaraa qorsheynta iyo dilalka magaalada Muqdisho in saaka lagu toogtay magaaladaasi maxaad warkaysaa marka fargodo horta magaalada Muqdisho saaka weerar ayaa ka dhacay weerarkaas laakiin uu dambeyn doona wararkan dambe ay ku soo qaadan doonaa weerar qaraxi ku bilowda degmada Wardhigle ka dhacay marka hadaan dilaayaashii aan ku hormarno saddex nin oo dilaayaal sarsare ah oo shabaabna ka tirsanaa ayaa lagu dilay maxaa la yiraahdaa saaka ee lagu toogtay magaalada Muqdisho gaar ahaan iskool bulsi waana dadkii oo kamid ahaa Dr. Falax iyo nin kale abko lagu magacaabo waana raggii ummadda ku dhawaateen jiro madax jabiska dadka u yaqaanay waaye marka Dr. Falaxna waa ka hadalna wareysigiisii horena waad aragteen xaalad halis ah iyo ummadda Soomaaliyeed ku ahaa dad fara badan oo qarxi dad fara badan oo toogtay ayaana jiray marka ugu dambeyntii saaka ayaa la toogtay adduunkana la dhaafiyay marka ummadda Soomaaliyeed leeb laga siibay ayaa u malaysaa saddexaas nin maadaama ay muddo fara badan ay isha ku dhex jireen inkastoo shabaabku ay inkireen ayna sheegeen in Dr. Falax uu ka tirsanaa shabaab haddana waa nin weyn oo shabaab ka tirsanaa oo waliba sargaal sare oo wajiyo badan iyo kaarar badan ku shaqeysan jiray ummad fara badan oo boqolaal qof gaaraysa magaalada Muqdisho ku dilay iyo deegaanada ku dhow xataa wuxuu ka soo shaqeeyay Baardheere Beledweyne iyo meelo kale maxaa la yiraahdaa isha Kismaayo deegaano kale fara badan wuxuu waxbarasho u aaday dalka dibadiisa sida Uganda iyo Talyaaniga sida afkiisa ka sheegtay marka ninkan waa nin halis ah in dad ummad Soomaaliyeed oo fara badan dhameeyay marka tiirka ayaa la geeyay dowladda Soomaaliya waa lagu mahad celinayaa maadaama ummadda dadka leeysay ee tiirka geysay ummadan waa dhibaato fara badan ay ka soo dharagtay dowladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa lagu eedan jiray in dadka dilka lagu xukumo aan la tooganin laakiin Xasan Maxamuud aad ay u toogtaa dadka qof kastoo dil ku xukumo tiirka hal geeyay ayuu yiri raashinka iyo sanaga dhameyn marka fargooda saddexdaas qof saaka waa la toogtay waana rag sarsare oo amiir ah oo shabaabka rag ugu sarsareeyay ah marka waxa la dhihi karaa guul ay noqon kartaa guul fargooda aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinaba daawadayaal barnaamijkeena ayaan dhexda kaga jiray warsaaka naga soo gaaray dalka Itoobiya gaar ahaan warbaahinta dalkaasi ayaa qoraya in dowladda Eritrea iyo waliba xoga sirdoon ay tilmaamayaan in kooxdii looran jiray TPLF ay ku jiraan abaabul xoog kadib markii xogaha soo baxay ay tilmaamayaan inay isku fahmi waayeen dowladda federaalka Itoobiya iyo TPLF heshiiskii dhawaan ka dhacay Pretoria iyo magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya waxaana la tilmaamayaa in qoladaasi aysan wareejininba hubkii cuslaa ee in dhawaalaba qaramada midoobay iyo midowga Afrika ay ku dadaalayeen in dalkaasi Itoobiya lagu wareejiyo waxaana suuragalaya la yiri in xilli walba ama laxdo walba ay ka bilaabi karto dagaal
waqooyiga dalkaasi Ethiopia haddaba wararkeena dambe ayaan kusoo qaadin doonaa xogaha ugu dambeeyay iyo weliba dalkaasi Eritrea oo baaqiyo caalami ah dareysa kooxdaasina u aragta khatar geeska Afrika intay nool yihiin khatar ku ah guud ahaanba geeska Afrika haddaan dib ugu soo laabto Mahad Colaad waxaan doonayaa Mahadow sideed u aragtaa qolyahan xoogagan SSC iyo mustaqbalkooda maxaa ka soo bixi kara horta saaka waa la weeraray gantaalana lagu garaacay qolada SSC sida hadda wararku ay soo bandhigayaan afhayeenka guddiga 33 ayaa saaka waxa uu sheegay in hubiyaal subaxan saaka lagu soo garaacay oo magaalada lagu garaacay waxaadna moodaa ayada oo wada hadal hadda la raadinayo in haddana hubiyaal hawsha ay socoto marka dadku waxay warsan hayaan ilaa dhowr iyo 10 bari dagaal ma dhicin toos ah wax la soo turtuuray mooyane ciidamadii ka soo birmaday meesha lagu magacaabo Boosaaso Garowe Gaalkacyo iyo Qardhana meesha ay wada tuuran yihiin kuwa horena way tuuran yihiin sababta aan dagaal loo qaadaynin nimankaasna ay magaalada habeenba ayagu u soo turtuurahayaan ayagana dagaal fintiri ay soo qaadaynin walis ya dadku isweydiinayaan maxay tahay balda dad ba waxay isleeyihiin garaadada maxaa ku dhacay amarka waxaa wata garaadada 14 garaad baa wax wata waxna ka go'a waxna haleeya 14 garaad haday ciidamada dagaalka gala dhahan amran hore dagaalka la geli ayaga un ba hortaagan dad ba waxay isleeyihiin maadaama garaadadii wada hadalkiina ay yeeleen baanta iyadoo ciidamada laga hor qaadin dagaal la qaadi laayay garaadada hadee waa Afrikaan hoosta looga dhiibay marka waxa weeye dadka shacabka un bay madaxa tusahayaan already sidan bay mar hore kula heshiiyeen lacagna qaateen marka wixii shacbihiisa banaankiinkiisa un baa wali qarsoon marka waxaan dhihi karnaa SSC jiritaankooda haddii ay sidii marka hore ay u muujinayeen awoodooda iyo taladooda isku duubnidaada haday u muujiyaan guul bay gaarayaan laakiin se haddii midmadow iyo kala sasabashiya lacag kala siin iyo xoog kala shukaansi ay meesha imaato oo la kala qaato oo de waa Afrikaano afka la isku bixiyo la kala kaxaysto waxaad moodaa halka inay ku fashilmeen dib dambana Soomaaliland ay gacanteeda soo u geli doonto aad iyo aad baad maasanta Gooniyo waxaa jira ciidamo aad u tiro badan oo ka goostay xerada weyn ee Goojacade haddaba xogtaasi bal nooga dhac fargoda horta warkan xal waxaan ku sheegnay in ciidamadaas faraha badan ee ka baxay ciidamada Soomaaliland inay aadeen deegaanka og halkaas oo ah xuduudka kala qaybisay SSC iyo Soomaaliland laakiin intaysan gaarin halkaas ayaa khilaaf dhacay waxayna sheegeen inaysan og sabab ay ku tagaan aysan jirin maadaama ay diideen in weerar lagu qaado magaalada Laascaanood kadibna waxay u soo laabteen dhankan galbeedka Sanaag waxayna ku laabteen deegaano kale oo ka tirsan SSC marka waxa laga yaabaa inay soo wareegsadaan ee ciidamada SSC isku dhiibaan maadaama la leeyahay intooda badan waxay ka soo jeedaan deegaanada SSC waana saraakiil sarsare waana ciidamo dhowr boqol gaarayo waa rag ay lagu tashanay dagaalkan waliba in lagu qasbo oo dagaalka la qaado ayaa la rabsaakay saaka magaalada madaafiic ayaa lagu garaacay madaafiicaas marka lagu garaacay kadibna weerar in la qaado qorsho ahaa waxa fashiliyay ciidamadan saraakiishan ka goostay ayaa fashiliyay oo diiday in dagaalka galaan taas ayaa keentay marka madmadowga isqabqabsiga laakiin waxa la leeyahay way baroobeen saaka madaafiicna lagu garaacay inkastoo markii dambe la soo hadlay la joojiye dagaalka Muuse Biixina wuxuu u duulay Addis Ababa rag kale ee SSC way u duuleen wada hadal ay halkaas ka dhici doono gantaalada iyo madaafiicdan hal joojiye marka madaafiicaas ayaa lagu joojiyay qorshaha marka saaka dagaal weyn in lagu qaado ay ahayd magaalada Laascaanoodna qorshooda inay qabsadaan ahayd nimanka la yiraahdo Soomaaliland taas way fashilantay saraakiishii ciidamada ka goostay ayaana keenay marka ciidamada way gadoodeen meel gooniyana joogan SSC uma galin Soomaaliland kuma soo laaban laakiin meel Sanaag ka tirsan ay ku sugan yihiin waa laga yaabaa in ciidamo ku soo laabtaan wada hadal kadib waana laga yaabaa in dhagaas SSC u goostaan marka fargoodo taas ayaa jirto in ciidamadaasna gadood ay sameeyeen waa arki doonaa wixii ka soo kordho maadaama aan wali faraha la isku fiiqay madaafiic la isku garaacayo in SSC hadii ay wada hadalka hadda jiro ay kamira dhalin weyso sida ay u soo halgantay iyo dagaalka ay gashay ee maanta wax ku heli weyso bari kamaal sida saaxiibkay maad sheegay waa meel cil soo istaagaya hadda waxa u fiican in cadkooda dhacsadaan hadii ay rabaan Soomaaliland la midoobaan in Soomaalida la midoobaan hadii ay rabaan Soomaaliland ku noqdaan waxba dhibaato ma laha laakiin garaadadu waxay leeyihiin waa ala altima ka soo baxeen inaan dib ugu laabano maamulka Soomaaliland ma isleedahay adigu waa dhahan oo hadda taas ay dhahan anagu Soomaaliland anaga dib isugu ma laaban doonay dhahan laakiin markii ay ku laabtaan markay tagaan sababa in laba mid boo dhici karto sida ma sheegay in laaluushi qarash la kala qaato waxa kala dhici doonta laaluush hadii qaadanayaan waa hore qaadan lahayn way diideen maya marka laaluushka la qaadanayo in SSC marka ku sugnaayeen laaluush ay qaataan iyo hadda kan way kala tahay
kan adoo laaluushka qaadanaysa haddana lagu qasbaya sababtoo Addis Ababa joogtaa ninkii laaluushka diido ama ka hor imaadana xabsiga la gelin karaa marka laaluush oo sanduulo ah inay qaataan laga yaabaa ama laaluush qaata ama waa lidin xidha taasoo kale dhibaatay keeni kartaa mogta taa arrintaasi diblomaasiyadda iyo xeerarka caalamiga ka hor imaanaysa marka isma lihi muusana dee waa nidaam dawli uu ku joogaa ninka la yiraahdo qoladan SSC na dee waa dad xaq u dirar marka Ethiopia labadoodaba ma xidhi karto laakiin way ku cadaadin kartaa heshiis miro dhala inuu gaaro way ku cadaadin kartaa laakiin waxay u diidaysaa inay wadanka ka baxaan Addis Ababa jooga maxaa sameynay Addis Ababa joogaysiin mana ka bixisiin halkan inta wax ka ogolaanaysiin kama duulaysin hadii la dhawaad waa u dhamaatay intaas ku filan mogta marka Ethiopia wax walba ka suurada wax walba ay sameyn kartaa laakiin in SSC xaqooda la doosiyo dagaalkii dhibaatada ay soo galeenna la dhaafiyo la afduubo wax fiican ma SSC inay go'aankeeda ku adkaysato shirkana saas uu ku sii socdo uu dambeena lagu kala baxo wax la isku raaco horta way fiican tahay laakiin hadii mar la yiraahdo waalidin jujuuba ay waalidin qabana ay waalidin xira ay inta la idin ka bixina taas dhibaato ay keeni doontaa mana u rajeynaa in SSC ku dhacdo Muuse Biixi naftiisa inuu soo dabcay oo hadda wada hadalka ogol yahay ayaa la sheegay waxaan rajeynaa in labada dhinac ay heshiis ogolaadaan wada hadal wanaagsan oo la isku fahmana in meeshaas oo ka soo baxo Fargodo aad baad mahadsan tahay daawadayaal waxaan kaga jira qaybtii dambe ee barnaamijkeena ayaan soo gaadhnay waxaa jira ninka lagu magacaabo Gooniyow in dowladda federaalka Soomaaliya dhawaalaba kooxda Al-Shabaab ay dagaal kula jirtay waxayna tilmaantay dowladdu inay bilaabi doonaan qaybtii labaad ee howlgalka ka dhanka kooxaha Al-Shabaab iyadoo bishii Ramadaan ay soo dhowdahay Fargodo horta waa sax howlgal ay dawladdu qorsheysay waxa laakiin ka socon la'dahay howlgalkaasi nimanka la yiraahdo Koonfur Galbeed iyo Jubbaland kuwaas oo ka cagijiiday in dagaalka la qabto laakiin shabaabka lagu qaado laakiin waxa jiro ciidamada Itoobiya gudaha u galay Soomaaliya iyo maxaa la yiraahdaa ciidamo kale oo la diyaariyo hadda baar dheer lagu qorayo ayaa laga yaabaa inay gobolka Gado meelo badan ay ka qabtaan bu'aalana ay ka saaraan shabaabka ku jira halkaas inta soonka lagu gudo jiro waliba ciidamada Itoobiya ma qoraan waxaasi meesha ay aadaan Muqdisho iyo baar dheer hadda isay kala soconaa hadday rabaan waa niman aan shabaabka u jixin bregan u qabanin waa shabaabkuna way ka baqaan Etoobiyaanka marka waxaa loo maleynayaa in bu'aala la qaban doono bisha Ramadaan gudaheeda meelo kale oo fara badan shabaabka laga weerar doono waxa kale oo Fargodo jirto saakay magaalada Muqdisho gaar ahaan saldhigga degmada Warrigle waxa ka dhacay weerar bambaanooyin ku bilowday iyo qaraxyo kadibna weerar toos ayaa dhexmaray ciidamada ku sugnaa saldhigga iyo dadka maxaa la yiraahdaa ay nimankii shabaab ah weerar ka soo qaaday kadib dagaal dheer kadib oo muddo dhowr iyo 20 daqiiqo kadib socday ayaa waxaa la sheegayaa in shabaabkii dad laga qabtay oo nolosha ayagoo dhaawac la qabtay kuwa kalena ay baxsadeen marka Fargodo dhibaato weyn ayaa ka jirto amniga Muqdisho bariyahan wuxuu isku bedelay weerar iyo ku dhufo ka dhaqaaq iyo qaraxyo iyo bambatuur ay isku bedelay arrintaani markii soonka la soo gaaro war walba way dhacdaa soon walbaba bambatuurkaas iyo qaraxyadaas iyo weeraradaas joogtada way sameeyaan marka saakay waa meel muhiim ah waa xaruntii magaalada gudaheeda sandarkeeda ah ayaa weerar shabaabka ku soo qaadeen marka u maleymaayo in arrintan dhamaan doonto maadaama ciidamada iyo dawladda iyo isku xirnaantii iyo kala qabqabsigii iyo foodadii ay bilaabatay oo waliba qabiilaadka Soomaaliyeed ay kacsan yihiin dawladdu ku kacsan yihiin waxaan u maleynayaa in dhibaatadu inta ka sii badan doonto howlgalka iyo weeraraduna ay sii kordhi doonaan ilaahay ummadda ka qabto nimankan waa niman dhib badan marka dambeysana wax isku dayaan in wax fashiliyaan xashim maxamed dawladdiisana kuma baraarugsano waxay isku dayaysaa ayadoo inay wax xaliso laakiin xalin ma karto oo xaaladii control ayay beeshay marka Fargodo waa arki doona wixii ka soo kordho in dagaaladaas iyo foodadaasba aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin daawadayaal waxay barnaamijka igala qayb qaadanayay saaxiibkay Gooni iyo Mahad Colaad oo inta badan labaduba ka faallooda xaaladii ugu dambeeyay ee deegaanada Soomaalida daawadayaal barnaamijkeeni faaqidaadana inta ayaan kusoo gabagabeynaa intaan dib u kulmi doono mid ka mid ah waxaan kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo